halkani waa markaska Nuurul Yaqiin litaxfiid al-Qur'aan al-Kariim. Waxa wax ku barta arday tiro badan oo isugu jira kuwa agooma ah iyo sidoo kale kuwa ka soo jeeda qoysas danyar ah. markaskani ayaa waxa uu u baahan yahay in loo iibiyo dhul lacagtiisa lagu qiyaasay 1,500,000 oo lacagta dalka Kenya maadaama ardayda goobaha ay wax ku baranayaan ay xilligan cariiri ku noqotay. waxa dhammaan muxsiniinta inta qeyrka jecel laga codsanayaa inay ka soo qayb qaataan sidii dhulkani markaska ku agdhow oo beeca ah loogu iimin lahaa markaskani. cid alla cidii doonayso inay caawiso waxay la xiriiri kartaa nambarada shaashada ku qoran. bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam. dhammaan walaalaha muslimiinta waxaan u sheegaynaa halkan aan joogno waa taxfiidkii Nuurul Yaqiin oo xaafadda Buulhodan dhexdeeda ahaa. taxfiidkaas ka xaflad u leeyahay ka qayb galay. waxaan soo marnay oo hadda joognaa dugsiga xaruntiisii. dugsiga ilmuhu waad aragteen ilmo badan baa dhigtay ma sha Allah. dhulka uu ku jirana waa balood yar oo 150 oo dad muxsiniin ay sadaqaysteen. ilaahay mahad ha siiyo oo wanaag ha siiyo aad iyo aad baa loogu liibaanay laakiin waa ku yar yahay baloodkaas uu ku yar yahay dhulka dugsiga. banaankan hadda aan taaganahay oo jiiraan la ah dugsiga ayaa waxa la yiri iib ah dhul fiican oo 100 by 100 ah. marka dhammaan dadka muslimiinta oo na arkay oo na maqlay waxaan ka codsanaynaa dugsiga taxfiidkaas in dhulkan loo gado. dadka muxsiniinta ah ee Soomaalida ah ee hadalka naga maqlaya waxaan ka codsanaynaa inay u gadaan qofkii wax Ilaahay wax siiyay. adduunyadu waa inta la nool yahay baa fursad la haystaa. marka dhimato adiga waxba lagu weydiinayo xoolahaagiina dad kale ku tasarrufaya. marka intaad nooshahay baad haysataa jaanis inay ka faa'iideystaan oo dugsigaas ay u gadaan. booskaas waa waqaf Ilaahay dartii hadaad u gado inta adduunka dugsigan dhisan yahay ee wax lagu baranayo ajri baa ku soconaya. marka dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa dugsiga in loo gado. meeshu way ku yaraatay dhulkan ku xiga iib ah waa fursad. marka in insha Allah taala in looga faa'iideeyo dadka Ilaahay wax siiyay ay dugsiga saacideeyaan oo dhulka u gadaan baan ka codsanaynaa. leeyahay maali xoolaha aan maartay tabcan 3 shay bis ma ku leenahay. waxa kale waxa way hadhow wad ka tagaysaa waxaad cuntay macnaha waxay musqush aad geysay iyo waxaad xiratay oo jirkaada ku baabay iyo waxa sadaqaysatay oo insha Allah taala account-da aakhir aad gashatay. saddexdan baad xoolaha aan tabcan inaan ku leenahay. muslimiinta marka xoolaha walaalayaal waxaan aad runtii maanta ugu baaqaynaa oo maartay marka saddexaad aan soo dirno wali jawaab aanan ka helin weeyaane. Ilaahay hanay barakeeyo. lacagta lagu rabo lacag aad u yar weeyaane. lacagayaan waxaana lacagtaas waa lacag 1,500,000 hal shakhsi ayaa bixin kara oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax siiyay. waana fursad runtii qaali ah. lawla maanta lacagta iyada aan hayna lahayn anaga bixin lahaynba laakiin macad Allah ma hayno. ilaahay marka walaalayaal waxaan aad runtii inaga baryan Ilaahay hanay barakeeyo. ilaahay maartay khayrkiin ha badiye. xoolahanayto waxa weeye waa imtixaan. nin waa loo dhiibayaa nin macnaha way ma hayo. rag badan baa loo dhiibay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhiibay. marka xoolaha waxa la marka inay janno ku iibsataan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala meelahu jecel lagu bixiyo. marka walaalayaal waxaan baaq runtii u diraynaa muslimiinta iyo dadka maartay aad maartay u nugul oo khayrka jecel in maartay dhulkaas ay dugsigan u iibiyaan. dugsiga Nuurul Yaqiin ee Buulhodan ku yeelay inaad u iibisaan waa markii runtii saddexaad ee maartay baaq aan jeedinay wali maartay maan helin dad ka soo jawaabay. laakiin insha Allah taala taamkan waxaan jecelnahay in macnaha jawaab rasmi aan ka helno. rag badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax siiyay baa jiro aad maartay u wanaagsan oo dugsiyalka maartay caawi dhowr meel oo hor maartay noocaas rag baa maartay ka qaniimaystay. marka waxaan hal shakhsi oo u duceeyno oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo caruurta Ilaahay u barakeeyo oo 1,500,000 bixiyo in maartay aan helno oo wali si degdeg aan u helno oo dugsigaas aan u iibino insha Allah taala anagana halkaas ay nooga dhamaato. Ilaahay khayraanaysa wa jazaakumullahu khayran. السلام عليكم ورحمة الله. oo dhulkan ma qanta ay dadka ay zaid uga cawaadahayaan anaga oo kamid ah guddiga dugsiga oo asaaseen oo ma qanta oo asaasna caruur yar oo agooma ay ku jiraan oo ma qanta zaid u codsanayna dadka muslimiinta adduunka ku nool inay ay ma qanta no taruucan oo dugsigan ay noo gadaan. meesha aan ku noolnahay waa meel yar oo caruurta hata inta iskugu imaadaan ay waxba ku akhrisan karin waaye. waxaan qof sadaqaystay meesha yar hata laakiin meesha ku xigtay waxa loo rabaa iib oo ma qanta qof sadaqaysta oo 1,500,000 oo ma qanta noogu sadaqaystaan u baahannahay. annaga oo guddiga waan isxilqaanay wali waan la xarbinahaynaa laakiin waan gaari la'nahay meeshana la tiigsaday oo ma qantana la yiri ku 1,500,000. marka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inta codkayna maqlaysa oo ma qanta muslimiin ah oo maanta oo Ramadaan la joogo
oo ma qaanta waalidiinta iloo sadaqeeyay la rabo dhulka oo ma qaanta maanta dadka xoolo way haastaan laakiin xoolahooda meesha ku bixinayeen ayaas ilaahay asfahansiinaynin hal nin ama laba nin laga yaabaa inuu ilaahay fahansiiyo meelaha lagu bixinaa lacagaha marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan codsanaynaa anaga oo guddiga dugsiga ka mid ah in ma qaanta dhulkan si ugu degdeg badan aan u helna majiib oo ma qaanta dadka muslimiinta inay wax isku kaynta daraan oo ma qaanta noolagada dhulkan oo caruurta agoomaha ah aan ugu faa'iideysanay cid alla cidii doonayso inay caawiso waxay la xiriiri kartaa nambarada shaashada ku qoran eber 728 32 88 35 0728 32 88 35 ama nambarka kale ee ah eber 726 35 84 97 waa 0726 35 84 97